ugu yaraan hal qof ayaa la xaqiijiyay inuu dhintay kadib qarax ka dhashay haanta gaaska cunnada lagu kariyo. qofka dhinta ayaa la sheegay inay ahayd haweeney. dhacdadan ayaa la soo tibiyay duhurnimada maanta waxayna ka dhacday dhismaha Ibgorowan ee ku yaala wadada 12aad ee xaafadda Isliya ee deegaanka Kamukunji ee magaalada Nairobi. 3 qof oo kale ayay dhaawacay soo gaareen. sidoo kale gaaska ayaa burbur u geystay qaybo ka mid ah dhismaha gurigaasi. dhacdadan ayaa waxa warbaahinta u xaqiijiyay sarkaalka taliska qaybta booliska OSPD ee xaafadda Burburu ee magaalada Nairobi Francis Kamau. Kwa majina mimi naitwa Francis Kamau, ndio OSPD wa area hii ya Isili ambayo inakava area mpaka ambayo ni headquarter yake iko Buruburu. Siku ya leo kuanzia kama saa 9 kulikuwa na incident hii ambayo imefanyika. Mnaona tuko hapa ambaye palikuwa na mlipuko. Mwanzo hatukujua ni mlipuko wa nini, lakini tumeita timu zetu ambazo ziko na maexpert ya kujua ni kitu gani imesababisha mlipuko. Na baada ya uchunguzi tumeona kuwa kuna gas, mtungi ya gas ilikuwa na leakage, ilitoa hiyo gas, na tuna suspect pengine wakati waliakisha kibiriti hiyo mlipuko ndio ilikuwa hiyo nyumba yote na vitu zingine za nyumba ambazo ziliharibika. Saa hizi tunasikitika kusema iko mtu mmoja amefariki na hakukufa exactly kwa sababu ya mlipuko immediate impact, na pia wakati ya kutoroka ndio hapo aligongwa na kitu na akakufa, na 3 wako hospitali. sidoo kale waxa arintan ka hadlay Cabdifataax oo kamid ah maamulayaasha shirkadaha dhismayaasha. Cabdifataax Ali Xasan oo kamid ah odayaashii Ibgaro real estate. waxaan cadaynaynaa sida dawladdu ay cadaysay ilaamaha baaritaanka amniga wixii guriga ka dhacay inuu ahaa gaas qarxay. gaaskaas ayaa keenay maaragtay derbiga inuu wax yeedmo. hawshu markii sidaas ayay ahaatay, dadka is dajiyeen, wax problem ma jiraan. xaaladuna waa caadi ilaa iyo hadda alxamdulillah. waxba dhimashada dhaawac hal qof waaye, dhimashadana hal gabar oo dhagax ku dhacay weeye, laakiin ilaamaha amniga ayaa xaqiijiyay arrintaas. khasaaraha hantiyadeed ma jiraan? may wax khasaaraha hantiyadeed ma jiraan. shacabku waxaan u jeedinayaa baaqa oo beenta oo la faafinayo oo la leeyahay qarax baa dhacay iyo guri kale baa dumay iyo waxaas waxba kama jiraan. guri dumana ma lahan, qarax dhacana ma lahan, gaas bay ahayd. arrintiina waa la xaliyay alxamdulillah. Maxamed Axmed Khaliif, warbaahinta Star, Nairobi.